Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkani waa EBC News Now. Daawadayaal ku soo dhowaada wararka Soomaalida. Madaxweynaha Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro ayaa isagu safar ugu baxay dalka Itoobiya magaalada Addis Ababa. Halkaasi oo si diiran loogu soo dhoweeyey islamarkaana waxaa soo dhoweeyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Mudane Gideon Tilmose. Madaxweynaha ayaa safarkiisan u daaran casuumad rasmi ah uu ka helay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Mudane Abiy Ahmed Cali. Wadahadalka ama wadaxaajoodka ra-iisul wasaaraha Itoobiya Mudane Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro ilaa hadda si rasmi ah looma hayo qodobada iyo waxa ay ka xaajoonayaan, balse waxaa hore u jiray isbagarad ka dhexeeyay Itoobiya iyo dowladda Somaliland oo ahaa isafgaradkii memorandumkii loo yaqaanay MOU-ga, kaasoo Itoobiya ay ku doonaysay in ay maranbiyood ka hesho Somaliland, gaar ahaanna ay ka hesho badda Saylac, taasi oo aan hirgelin islamarkaana dowladdii horena ay dhacday, haddana ay dowlad cusub ay joogto Somaliland oo uu hogaaminayo madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro. Sida ilawareedyo ay noo xaqiijiyeen, qodobada hor yaalla ee ay ka wada hadli doonaan waxaa ka mid ah iskaashiga dhinaca dhaqaalaha iyo isticmaalka dekedda berbera, iyo qodob kale oo isaguna muhiim ah oo isagu meesha ku jira shidaalka gaaska dabiiciga ah Itoobiya hadda ay soo saarayso ee laga qodayo kalalka shanaad ayaa isagu u baahan dekeddii laga dhoofin lahaa maranbiyeedkii loo isticmaali lahaa shidaalkaasi in laga dhoofiyo. Haddaba qodobkaasi isaga qudhiisa waa mid meesha yaalla oo Itoobiya ay hadda si degdega ugu baahan tahay, balse dowladdii hore ee Somaliland ee xisbiga kulmiye iyada qudheedu qorshaha waa uu ugu jira wayna ka wada hadleen arrintaasi, balse dowladdan hadda joogta ee uu madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Ciro hogaaminayo ayaa iyagu looga fadhiyaa heshiiska hadda ay Itoobiya la soo gelayaan waxa uu noqon doono in uu noqon doono mid isagu ay sii taabageliyaan heshiiskii MOU-ga ee hore u jiray iyo heshiisyadii kale hore u jiraba, ama in ay kuwa cusub ay markaasi iyagu la tagaan meesha, ama ra-iisul wasaare Abiy uu la yimaado qorshayaal cusub. Madaxweyne Ciro waxa uu ka soo noqday safar dalka Imaaraadka daraato, islamarkaana maanta oo maalintii ku xigtay ahaydna waxa uu u dhoofay dalka Itoobiya. Su'aalo badan ayay dadku isweydiinayaan oo ku gadaaman arrimahan. Waxaa kaloo jirta iyadana madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu markaasi maalintii uu Ciro Imaaraadka ka soo noqonayay maalin ka horreysay uu halkaasi ka dhoofay dalka Itoobiya magaalada Addis Ababa, halkaas uu kulan kula lahaa ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed, kaasoo albaabadu u xidhnaayeen labadooduba. Ilaa iminka cidima oga waxa ay ku heshiiyeen, balse markii uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka tegey dalka Itoobiya, idaacadda dalka Itoobiya ayaa waxa ay soo saartay warbixinno ay kaga sheekeynayaan in safarkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu soo afjaray maranbiyoodkii Itoobiya ay doonaysay, islamarkaana ay u ogolaatay dowladda Soomaaliya in ay maranbiyood siiso Itoobiya. Idaacaddu waxa kaloo ay sheegtay in shuruudda keliya uu madaxweyne Xasan Sheekh ku xidhay ay tahay in aanu ictiraafin Somaliland, balse ay siiyeen una saxeexeen badda Soomaaliya, taasoo macnaheedu ka dhigan tahay badda uu saxeexay ee tahay dekedda berbera iyo dekedda Saylac. Hadda lama ogaan karo arrimaha ku gadaaman geeska Afrika ee markaasi albaabka hoostiisa laga wado, balse waxa xaqiiqo ah in Abiy Ahmed iyo Xasan Sheekh ay wax ku heshiiyeen, halka madaxweyne Ciro isagu markaasi uu dalka Imaaraadka siyaasaddiisa diblomaasiyadeed uu kusoo falkinayay, uu halkaasi markaa isagu shaqo badan kusoo qabtay aan la garanayn waxay tahay. Waayo waxaad ka garan kartaa safarka uu si degdega halkaasi intuu uga yimi uu ku baxay Itoobiya ku tegey, islamarkaana uu markaasi Xasan Sheekhna uu ka horreeyay maalin. Isdabamarka noocan ah ayaa ah arrimaha markaasi ku gadaaman geeska Afrika ee dalka Itoobiya iyo Soomaaliya.
iyadoo qudheedu Djibouti ayaan ka maqnayn oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa isagu lagu wadaa inuu Djibouti tago maalmahan hadda afooda ay nagu soo haysaa wixii warar ee kasoo kordha arrimahan hadda soo kordhay waan idila socodsiin doonaa EBC News Now ayaad kala socon doontaan warkaasi halkaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa intaanu dib u kulmi doono waa mustafa cabdulaahi ownileh isma dhaafno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu